laba gabdhood oo Soomaali ah oo walaalo ah ayaa xalayto waxa lagu dilay dalka Canada iyadoo dilku markii uu dhacay kadibna ciidamada booliska dalkaasi ay qabteen dad lala xiriirinayo in dilka gabdhahaasi ay ku lug lahaayeen. warkan waxa faahfaahinaya wariyaheena Xasan Matoore. dilka labadani gabdhood ee walaalaha ee Soomaalida ah ee lagu kala magacaabi jiray Asma Cabdiraxmaan iyo Nusayba Cabdiraxmaan deganaana magaalada Ottawa ee cariga dalka Mareykanka ayaa wararka Ottawa laga helayo tilmaamayaan gabdhahan in dilkooda loo adeegsaday midiyo isla markaana meydadkooda laga helay laba qol oo kamid ah gurigii ay Ottawa dalka Canada ka deganayeen. lama oga dhab ahaan cidda ka dambeysay dilka labadan gabdhood ee walaalaha ah iyo waxa ay sababsadeen. waxaase warbaahinta uga waramay Cabdulqaadir Maxamuud Xirsi Maalin Ilkacase oo daris dawla ahaa labada gabar ee geeriyootay iyo waalidiintooda isku meel deganayeen. waxa uuna marka hore ka warbixiyay waxa ay ahaayeen gabdhahan inta aanay geeriyoon ka hor. gabdhahan Allah u naxariisto gabdho waxay ahaayeen horta aniga Soomaalinimada iyo مسلمين كسكو قبل وحاين درس إلى حاين يوارد كذا مدبرنا أول دقيقين فهمت وحاين قبل الله نحرست وحبن آدم كفانا الأقرح بدنا حاين ضد دين كنا كحرن وحبرسنا كحرن وارد كنا قرانا حاين أرنتان حل بعد أرنا فلان هاد فهمت آدم كوميونتي يدك إيل كذا وحنو كذا فهمتينا وحن هذا سيدي وحول عين حقيقة لما وقال كل يوم قبل حلوة دكتور عمرك 6 ساعات أيام الأولاد هنا دكتور مارت اللي دلي. ciidamada booliska ee dalka Canada ayay sheegayaan warar laga helayo magaalada Ottawa in ay u qabteen tiro dad ah oo la xiriirinayo dilka gabdhahan Soomaalida ah sida uu mar kale ka warami doono Cabdulqaadir Maxamuud Xirsi Maalin Ilkacase. بوليس حالة مرأة ماشي بوليس كتجمع واحد ماشي إنه قبتين قف مركز دليل هاي تومة إنك صبرتان أو خش لكن كل يوم قف على قبتان الجويرات أو مرت إذا عدونا شيء مقالة نحطه كل مجيبين كل وارد كقرر ومقنعين لوضع وكمقنعين جريدة هاي كل يوم مركز شقي جرتي لكن أنتي وحواي مرتي حلو بدنا هذا كل مسلم كيدك كسمع لبا بجيسنا هنا وحن قبل بنا يعني وارد الأولاد بس ودعوا هنا نقد وقوجي وكل كنا ونحرس